Hargeysa weli waxa ay maskaxdeedu la dhaqaaqsan tahay nagaayaradii ay ka qaaday dhawaaqii Benjamin Netanyahu. Durba waxaa yimid wariyaal u dhashay Israa'iil oo meelo kala duwan booqday. wararna gudaha ka tabiyay laakiin isweydiimo waaweyn oo aan jawaab loo haynin ayaa miiska yaala. Afaahinta labada dhinac baxsheen oo aan ka ahayn daqiiqado kooban oo la soo bandhigay oo wada hadal lama sheegin. Kuma filnana su'aalaha isdhexdaadsan. Tabintan waxaynu ku eegaynaa maxay faa'iideysaa Somaliland. Aysa ku khasaaraysa aqoonsiga Israa'iil. Tabasho muddo dheer ah. 65 sano ka hor ayay dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay ku midoobeen Koonfur iyo Waqooyi. 4 sano kadibna isku day Afgambi ayaa burca ka dhacay. 1990kiina waxaa dhacay qaranjabkan ilaa maanta laga kaban. deegaanada Somaliland 34 gu ee weydaartay. waxay sheegeen inay ka go'een Soomaaliya oo ay noqdeen dal madax bannaan. iyagoo qabadareen looga garaabay oo in dawladnimada loo adeegsaday lagana galay dambiyo xuquuqda aadanaha ka dhana. 3 madaxweyne oo isku bedeshay xukunka Soomaaliya. kadib ku meel gaarnimo ka bixidii ayaa toobiyahan raacay. oo Hargeysa si cad baarlamaanka uga hor cadeeyay xadgudubyo xasuuq oo ka dhacay. laakiin taasi daaweyn iyo garowshiyo midna ma keenin. 30 sano in ka badan ayay deegaanadan raacdo ugu jireen cid soo joogsato doodooda oo dhageysata. waxa aqoonsata dal madax bannaan. waana la heli waayay si ay tan u gaaraan. doorashooyin xukunka lagula wareegay ayaa ka dhacay. waana bugcadda kaliya ee geeska Afrika ee laga qabto doorasho furan oo mucaarad ku guuleystaan. dalalka daneeya amuurta Soomaaliya waxay xoogga saareen in Soomaalida arrimahooda midnimada loo madax bannaaneeyo. lagana shaqeeyo in la isku soo dhaweeyo oo dhexdhexaadin laga galo. dalalka Afrikana waxa ay qaateen halka Afrika gudaheeda hays xalliso. taasoo macnaha ka dhigan in la dhowro xuduudihii midowga Afrika lagu dhisay. 13 sano ka hor dhaqaaq lagu sawiray istaraatiijiyadda Ankara ayaa bilowday oo dusha laga dhigay. looguna magac daray wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. taasoo ay siyaasiyiin badan ku sheegeen madhalays inay ahaayeen. yoolku waxa uu in Turkigu danihiisa labada dhinac ka helo. hogaamiyaasha Soomaaliduna jihadan waa ku dhiiran waayeen. go'aanada ku dhacda ee Masiriga. 6 qodob ee hadda Hargeysa faa'iido ahaan u haysataa kadib dhawaaqii Netanyahu. 34 sano oo ay sheeganaysaa inay ka baxday Soomaaliya. waa markii koowaad ee dal aan ahayn Afrika iyo dalalka go'aanadoodu saamaynta lagu leeyahay. uu si cad ugu bareero ku dhawaaqin aqoonsiga dal madax bannaan. tan waa inay ka baxdo aag ay joogtay rubco qarni iyo kalkoosa. 2 Israa'iil looma fasiri kala dal awood ahaan hooseeya. loomana akhrin kara keligeed inay go'aan ka qaadatay. waana anfacaysaa tani doodda Hargeysa. 3 Somaliland waxay ka helaysaa Israa'iil qalabayn military sirdoon abuurka beeraha iyo wax wada qabsi xasaasiyadiisa xambaarsan. gaar ahaan Hargeysa ayaa hadda baahi weyn u qabta dibudhiska hay'adaheeda ammaanka. Tel Aviv waxay 7 ka hor siisay Taiwan nidaamka difaaca hawada ee Iron Dome oo qiimihiisu yahay $4 bilyan. waxaana lagu sheegay hadiyad inay ahayd bixintan Netanyahu Taiwan siiyay nidaamka difaacana. 4 magaca Somaliland bari ilaa galbeed ee dunida miisaska waaweyn ayaa lagu dul falanqeynayaa. waa ribi xooggan marka galkan la akhriyo malaayiin dollar oo ay Somaliland ku bixi jirtay inay olole ka gashay dunida. musharaxida doodeeda oo keliyana waxa kaga baxaysay malaayiin dollar. 5 haddii ay 34 sano ee la soo dhaafay Somaliland iyo dalal badan ka baadi goobaysa inay la fariisato kana hesho ugu yaraan sawirro loo okeysiyay xiriirada diblomaasiga. hadda waxaa khasaba inay jiri doonaan dalal aan aqoonsan balse la yeelanaya xiriirro amni ilaa kuwa ganacsi. qaarkoodna isha ayay ku hayn doonaan. gaar quwadaha awoodda oo baadi goobaya gacan ka cadmeed. tan oo ina siinaysa in Somaliland sidii hore aan loola dhaqmi doonin. 6 xataa haddii ay Soomaaliya ku sii jirto Somaliland waa budo gaar u tuman oo dalalka dunida ee dhaqaalaha ku baxsha. soo kabashada Soomaalidu ay ku khasbanaan doonaan inay gaar ula macaamilaan. haddii ay hore u haysatay shatiga in qoodadeeda aan lagu dhex darin dowlad goboleedyada federaalka. mase dhicin culimada diinta ilaa shacabka ayaa si u farxay. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Falastiiniin la geenayo Somaliland. taasoo abuuri lahayd jawi gudaha dadku diidaan. gaar ahaan shakhsiyaad magac iyo maamuus martabad sare ku leh dhinacyada diinta iyo siyaasadda ee gudaha deegaankaas. ma suuragelin. waase weli qodob furan oo khasaare u keeni kara Somaliland haddii uu hirgalo. 2 Somaliland waxay ka mid tahay deegaanada ugu nabdoon ee Soomaaliya. ha yeeshee hanjabaadaha cusub ee ka imaanaya kooxaha argagixisay ee koonfurta Soomaaliya ayaa ka dhigaysa in haddii ay isku dayaan balangal ay ku yeeshaan gudaha Somaliland ay ka dhigan tahay khasaare halis gelin kara amnigii muddada dheer deegaanada ay ku naaloonayeen. 3 Xuutiyiinta Yemen waa ku dhow yihiin Berbera iyo Somaliland. waxay sheegeen in hadaf ay yihiin oo ay beegsan doonaan saldhig kasta oo military oo laga hirgeliyo gudaha Somaliland. taasoo khasaare soo gaara dhinaca Hargeysa noqon kara. 4 dalalka Carabta oo ay Somaliland ka heli jirtay taageero dhinaca bini'aadantinimada ah. hadda waxay qaadi doonaan go'aano ay ku joojin doonaan
meeshana uga saarayaan taas Jabuuti oo ka mid ah cidda ugu dhow ee xiriirka lahayn Hargeysa ayaa hadda dhabarka u jeedisay dhinaca Somaliland Turkiga Qatar iyo Sacuudiga ayaa iyana isla wadadaas oo kala raaci doona kuweenna wala sii kaxaysan doona ugu dambeyn maxay yihiin qodobo ay ku heshiiyeen Somaliland iyo Israel oo geeska Afrika wax weyn ka bedeli doona qaabaysankiisa